kusoo dhawaada warka habeenimo macluumaadka fadlan haddii aan ku cusubtahay subscribe saar kumeelka furdaawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jimcaha khudbado xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay oo maanta si toos ah ugu eedeysay madaxweyne Farmaajo in xiisada dalka Soomaaliya ka taagan oo isaga abuuray isla markaasina uu la garabsaday baarlamaanka federaalka Soomaaliya si toosna ugu hanjabay xiisada iyo qaralaasaha iminka ka taagan Soomaaliya uu sabab u yahay madaxweyne Farmaajo dowladda Mareykanka ayaa si toos ah ugu eedeysay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xiisada siyaasadeed dalka ka abuuray markii isaga iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu hogaamiyay Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ay rideen xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre isla markaasina dalka uu qalalaaso xoogan sii galay ayadoo awalba sheekada aad u xumeed ku-xigeenka ergeyga Mareykanka ee qaramada midoobay gabadha lagu magacaabo Norman Charlotte oo khudbad ka jeedisay shirkii golaha ammaanka qaramada midoobay ee xaaladda Soomaaliya ayay si cad ugu sheegtay in ay nasiib darro ahayd isla markaana ay abuurtay xiisad siyaasadeed tallaabadii madaxweyne Farmaajo iyo golaha shacabka ku rideen xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre isla markaasina dalka uu sii galay qalalaase siyaasadeed nasiib darro madaxweynaha iyo golaha hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay kalsoonida kala noqdeen xukuumadii hore bishii July taasoo kaliya dhalisay xiisad siyaasadeed waxaan ka walaacsanahay inay tallaabadaasi majaxaabinayso wada hadalkii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayay khudbadeedii ku tiri gabadhaasi oo mowqifka dowladda Mareykanka halkaasi ka cadeysay isla markaasina macnaheeda ay tahay dowladda Mareykanka oo idil way ka soo horjeedaa qaabkii u dhaqmayaan madaxweyne Farmaajo iyo gacan-yarayaashiisa oo ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha shacabka waxay kaloo sheegtay in loo baahan yahay doorasho waqtigeeda ku dhacday suuragal ahna nabad ku dhacdo oo lagu qanacsan yahay tallaabo kasta oo dib loogu dhigo doorashada ama la daahiyana ay keeni karto halis amni iyo isla markaasina qalalaase siyaasadeed si kastaba ha ahaatee qaramada midoobay oo maanta si toos ah ula hadashay madaxweyne Farmaajo isla markaasina hadda iyo wixii ka dambeeya uusan sameyn karin wax isdabamarin hase ahaatee wax waliba uu asiga doonayo ama uu ka qanacsan yahayne inuu go'aan ka gaari karin si kastaba ha ahaatee haddii uu halkaasi shirka dhuusamareeb kala soo baxo qodobo asiga caawinayo isla markaasina ummadda Soomaaliyeed aysan ku qanacsaneen baarlamaanka uu horkeeno waxa hubaal ahi beesha caalamka inay dhaqaalaha ka goosanayso ammaanka filla Soomaaliyana faraha uu ka bixi doono isla qaramada midoobay ayaan ku jirnaahay James Iswam waa nasiib darro in Dani iyo Axmed Madoobe ay diideen shirka dhuusamareeb wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswam ayaa khudbad u jeediyay galabta kulan ay xaaladda Soomaaliya ka yeesheen golaha ammaanka qaramada midoobay James Iswam ayaa warbixinta uu siiyay golaha ammaanka kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya isagoo ku soo qaaday wada hadallada dhuusamareeb doorashooyinka qaranka guulaha ammaanka laga gaaray iyo caqabadaha taagan xaaladda bini'aadanimo iyo saameynta caabuqa 19 ku yeesha Soomaaliya waxaan ka xunnahay inay shirka muhiimka ahi ee dhuusamareeb ka maqan yihiin madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe waxay ahayd niyad-jab inay diideen ka qaybgalka shirka inkastoo codsiyo badan ay u direen hogaamiyaasha Soomaalida iyo beesha caalamka ayuu yiri James Iswam wuxuu sheegay inay fahamsan yihiin jiritaanka aragtiyo aad u kala duwan oo u dhaxeeya hogaamiyaasha Soomaaliya xiisada siyaasadeedna ay kacsan tahay xilligan kala guurka ahi balse ay muhiim tahay in hogaamiyaasha Soomaalida ka wada hadlaan sida ugu habboon ee xal loogu heli karo arrimaha taagan ayuu yiri James Iswam dhinaca kale markab ku soo jeeday magaalada Muqdisho oo la afduubtay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaya wakaalada wararka ee Reuters ayaa maanta shaacisay in koox burcad badeed Soomaali ahi ay afduubteen markab sitay calanka dalka Panama isla markaasina ku soo jeeday Soomaaliya Reuters ayaa sheegtay in warkaasi uu xaqiijiyay mas'uul ka tirsan maamulka Puntland markabka ayaa la sheegay in uu ka yimid dalka Imaaraadka Carabta kuna jeeday dekedda magaalada Muqdisho koox burcad badeed Soomaali ah ilaa iyo 6 gaaraya ayaa markabkaasi qafaashay habeenkii Arbacada sida uu sheegay Muuse Saalax oo ah gudoomiyaha Gardafo ee Puntland macadda shaqaalaha ajaanibta ah ee markabkaasi la socday tirada ay dhan yihiin si kastaba ha ahaatee waxaa si toos ah loo cadeeyay in markabkaasi ay afduubteen burcad badeed laba ka mid ah wasiiradii ugu awooda badnaa uguna dhawaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo awoodoodii la wiiqay isla markaasina laga dhigay shacab gacnaha isa saartay tan iyo markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre waxaa hoos loo dhigay awoodda laba ka mid ah wasiirada aadka ugu dhawaa ra'iisul wasaare Kheyre isla markaasina garbihiisa ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaw Ducaale ayaa ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya
cabdi maxamed sabriye ayaa awoodooda hoos loo dhigay waxaana sababtaasi lagu sheegay in labadooduba ay saaxiib dhow la ahaayeen ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre islamarkaasina ay ahaayeen raggii garbihiisa taagnaay waana labada wasiir ee ugu awoodda badnaay hawiye islamarkaasina gudaha magaalada Muqdisho iyo gudaha Soomaaliya awood ku lahaa dhammaantoodba hawiye ayaa arintaasi lagu wiiqay Ducaale iyo Sabriye ayaa ka dhiidiyay xilka qaadistii ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waxaana la sheegay inaysan tagin kulamada golaha wasiirada wixii markaasi ka dambeeyay oo shirgudoominayay Mahdi Guuleed qadar kusimaha ra-iisul wasaaraha islamarkaasina gabi ahaanba halkaasi aan tagin arintani ayaa ka dhigan in meesha laga saaray Xasan Cali Kheyre Maxamed Abuukar Islaaw iyo Cabdi Maxamed Sabriye oo dhammaantood beesha hawiye ku matala xukuumadda iyo awoodaha kale ee ugu muhiimsan dawladda islamarkaasina gabi ahaantoodba la taageerayay wararka aan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in si hayaa xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed qadar uu awoodda shaqada ku wareejiyay wasiir ku-xigeenada iyo wasiiru dawlayaasha wasaaradda iyo kuwa kalaba waxaana sababta ugu weyn lagu sheegay in dadka culayska la saaray ay ahaayeen shakhsiyaad aad ugu dhow ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre labadan wasiir ayaa xilka laga qaadi lahaa balse maadaama uusan weli jirin ra-iisul wasaare cusub Mahdi Guuleed qadar uusan lahayn awood uu ku magacaabo wasiir waxa qasab noqotay inay xilka magac ahaan u sii hayaan balse shaqadooda loo wareejiyay dad kale islamarkaasina la yiri gurihiina iska jooga saacadihii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho aad looga hadal hayaa arintani waxaana la sheegayaa in madaxweynaha iyo siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha ay beegsanayaan saaxiibadii Xasan Cali Kheyre gaar ahaan wasiiradii awoodda lahaa ee beesha hawiye islamarkaasina ceeb ayay ku tahay ayaa la leeyahay madaxweyne Farmaajo iyo siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee beegsiga saaxiibadii ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa weli sii wadaan Mahdi Guuleed iyo madaxweyne Farmaajo dhinaca kale xoghayaha guud ee qaramada midoobay war ka soo saaray xilka qaadistii Kheyre iyo doorashooyinka dalka xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xilka qaadistii uu golaha shacabka Soomaaliya ku sameeyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre Antonio oo soo saaray warbixin qaramada midoobay ee xaaladda Soomaaliya ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in xilka qaadista degdega ah ee Kheyre waxyeelayn karto heshiisyadii lagu gaaray shirkii Dhuusamareeb waxa uu sidoo kale sheegay inuu ka walwalsan yahay inay waxyeelayso howlgallada amni iyo kuwa siyaasadeed ee kala guurka ah ee socda iyo sidoo kale isbedeladii amni iyo dhaqaale ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waa muhiim in la dhowro heshiisyadii ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ku gaareen Dhuusamareeb iyo waqtiga kulamada xiga ee lagu ballamay ayuu yiri Antonio Guterres ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay inay muhiim tahay in doorashooyinka Soomaaliya ay noqdaan kuwa ay heshiis ku wada yihiin dawladda dhexe dawlad goboleedyada dalka baarlamaanka xisbiyada siyaasadda iyo dhammaan saamilayda siyaasadda dalka hogaamiyaasha federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka waxa dhammaantood ay mas'uuliyadda ka saaran tahay inay dalka isku hayaan kuna hagaan isu tanaasul siyaasadeed ayuu yiri waxa ugu dambeyntii ku baaqay in heshiis degdeg ah la gaaro si doorashooyinka baarlamaanka ay ugu dhacaan waqtigooda oo ah bil ka hor dhammaadka muddaxiloodkoodii xildhibaanada iminka oo ah bisha December taasi oo macnaheedu yahay in la qabto ka hor November islamarkaasina halkaasi la rabo in xildhibaano cusub ay yimaadaan dhinaca kale howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo howlgal ku dhawaaqay maamulka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa maanta soo saaray qoraal dukumiinti ah oo qeexaya waajibaadkooda howlwadeenada ee la xiriira habraaca ilaalinta deegaanka qoraalkani ayaa lagu sheegay in howlwadeenada ay waajib ku tahay dhaqangelinta dhammaan nidaamka ilaalinta deegaanka gaar ahaan marka ay fulinayaan waajibaadkooda ka saaran howlgallada nabad ilaalinta ee dalka Soomaaliya dukumentigan oo ciwaan looga dhigay nidaamka howlaha aasaasiga ah ee AMISOM waxaa arbacadii si rasmi ah u bilaabay wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Maderi